kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantii basaaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta tallaabo kasta oo aad qaadaa waa muhiim ha yaraato ama ha weynaato mararka qaar ayaa laga yaabaa inaad istiraahdo malaha tallaabo weyn oo aad qaado ayay guushu ku jirtaa balse dhab ahaantii guushu waa natiijada tallaabooyin yaryar oo aad u qaaday si istaba joog ah tallaabada aad maanta qaadaa waxay dhisaysaa jid cusub oo berri ku geeya halkii aad ku haminaysay xataa haddii ay tahay tallaabo yar oo aan saamaynteeda hadda la dareemi karin waxaa muhiima inaanad waxyaabaha qaar yaraysan sababta oo ah wax kasta oo weyni waxay ka bilaabmeen wax yar tusaale ahaan haddii aynu u fiirsanno wakhtiga wuxuu ka bilaabmaa second wuxuuna noqdaa minute wuxuuna noqdaa saacad wuxuuna noqdaa habeen iyo maalin wuxuuna noqdaa bil wuxuuna noqdaa sannad ilaa uu qarniya noqdo haddaba waynu aragnaa halka uu wakhtigu ka bilaabma inay tahay secondkuna uu yahay markaa shay aad u yar haddana halka uu gaadhayo iyo inta markaa uu wakhtigu leegaanayo waa aynu la soconnaa haddaba wax kastaa wax yar ayay ka bilaabmaan hadda bilow tallaabooyin yaryar oo mustaqbalka meel weyn ku gaadhsiisa qayrkaana aad ku dhaafto noloshaada dambena qurxisa maanta waa maalintii aad go'aan gaadhi lahayd hana u qaadan inay lacagtu tahay keliya wax lagu iibsado balse waa inaad ogaataa inay tahay fursad lagu dhiso berri wanaagsan wax yarood maanta kaydsata ayaa wuxuu noqon karaa gargaarkaaga maalinta adag wuxuu noqon karaa jidka aad ku gaadhaysa riyooyinkaaga waxaa kale oo uu kaydkaasi yahay difaac ku garab taagan marka aad u baahato sidaa awgeed maanta ayaad go'aansan kartaa waxa aad rabto inaad berri noqoto mana jiro wakhti sax ah oo wax la bilaabaa ee waxay ku xidhan tahay oo keliya inaad go'aansato inaad bilowdo islamarkaana aad yeelato adkaysi iyo joogtayn taasaanad ku gaadhaysaa wax kasta oo aad noloshaada rabto marka laga reebo qadarka Ilaahay kuu qoray. Welcome to Mamoo's Media Studio and subscribe my channel, like and share. Any welcome again and again, thank you.